Ashraf Hakimi been bay iga sheegayaan sumcadda inay iga diraan ayay rabaan. Daafaca midig ee Paris Saint-Germain Ashraf Hakimi ayaa waraysi uu siiyey barnaamijka Click kaga hadlay eedeymaha uu wajahayo isagoo si gaar ah u xusay sida uu been abuurkaasi u saameeyey qoyskiisa. Hakimi ayaa yidhi weligii qof iima geysan dhaawac intaas le'eg, aniga way u adkayd welina way igu adag tahay sababtoo ah marka been badan la qoro aad bay u dhaawacaysaa gaar ahaan qoyskayga. Carruurtayda weli way yar yihiin, ma yaqaanaan internetka, welina wax ma akhriyaan, laakiin maalin ayay akhrisan doonaan waxyaabahan oo kale. Aniga ahaan inay arkaan been sidaan oo kale ah oo laga qoray aabbahooda waa wax aan fiicnayn, mana doonayo in cid kale lagu sameeyo. Hakimi ayaa intaas ku daray, ciyaaraha kubadda cagta dad badan ayaa isku daya inay naga faa'iidaystaan. Haddii aadan ku hareeraysnayn dad wanaagsan, waxyaabo sidan oo kale ah way kugu dhici karaan. Kadib wixii igu dhacay, waxaan bedelay waxyaabo badan iyo dad badan. Hadda goobteeda dadkii igu dhow aad bay u yar tahay, mana la ogola cid kale inay soo gasho. Dhinaca kale, cadaadiska Robben Amorim oo sii kordhay iyadoo tababare Bundesliga ah uu sheegay inuu doonayo shaqada Man United. Tababaraha Manchester United Robben Amorim ayaa cadaadis weyn kala kulmaya garoonka Old Trafford, waxaana durba soo baxay musharax doonaya booskiisa. Kooxda Eintracht Frankfurt oo si heer sare ah uga ciyaaraysa Bundesliga isla markaana soo saartay xidigo ay ka mid yihiin Omar Marmoush iyo Hugo Ekitike ayaa tababaraheeda Dino Tomola qirtay inuu jeclaan lahaa inuu mustaqbalka noqdo macalinka Man United. Isagoo la hadlayay wargeyska Jarmalka ee Bild ayuu yidhi, waagii aan ciyaari jiray ciyaaraha kombiyuutarka, hal koox ayaan mar walba dooran jiray, waana Manchester United. Waa hubaal inay noqon lahayd wax qurux badan mustaqbalka inaan macalin u noqdo, maxaa yeelay waa naadi cajiib ah. Markii aan dhalinyarada ahaa, Manchester United waxay ahayd mid lala barbardhigo Real Madrid, naadiga ugu weyn adduunka. Tomola ayaa la sheegay in loo bandhigay shaqo iyo heshiis dhan 6 milyan oo pound sanadkii oo ka yimid Sacuudiga, balse wuu iska diiday. Dhanka kale, Amorim ayaa cadaadiska wax yar ka degay toddobaadkan kadib markii United ay ku garaacday Chelsea 2-1 kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League. Nidaamkiisa 3-4-3 ayaa si weyn loo dhaliilay kadib guuldaradii ay kala kulmeen Manchester City. Hase yeeshee tababaraha reer Portugal ayaa ku adkaystay inuu sii wadan doono nidaamkiisa, taas oo ugu dambeyn guul ka dhalisay kulankii Blues. FA Ingiriiska oo Chelsea ku soo rogay ganaax culus kadib guuldaradii Man United. Kooxda Chelsea ayaa lagu ganaaxay lacag dhan 25,000 kadib dhaqankii ay muujiyeen kulankii ay Manchester United garaacday horyaalka Premier League. Sida ay sheegtay Daily Mail, Chelsea ayaa qaadatay 6 kaar oo jaale ah intii lagu jiray ciyaarta. Mid ka mid ah waxaa la siiyey tababaraha kooxda